قبلها الله دالت سنة هيدا حاليو شعب ديرانو وذا تشيرا دمان دبتا نعب لها دقنا بدلان دول وناك سنة دقن قبلها الله دالت سنة هيدا حاليو شعب ديرانو وذا تشيرا دمان دبتا نعب لها دحمو الشعب لان كدح بري نوغان دوغا مودوغو كل دوغو بارانيو هدفتيمو دانك بري عربيو تلحيس لولودو إدا حقي بلان إدا وي قردو داري قندلا لدوب أي العرميو يروي دمو دولك نبضو تالي وسو دوي يوسو دوي دولك نبضو تالي وسو دوي دحمو شعب بلان بلان حليمان الهاد عمر وحليمانات برلمانكا dalka Mareykanka ka tirsan waana gabadh reer Puntland marka boqosho muxuu ahaayay shaqo iyo mid maartay iskeeda labadaba way ku iman kartaa waa dalkeedii weeyaan marka insha Allah waxaan ku ogaan doonaa marka iyadu media hal hadashay ku ogaan doonaa safarkeeda waa gabadh reer Puntland waana xildhibaanad maartay ka tirsan baarlamaanka Mareykanka marka boqoshadeeda intaas aynu u deenaynaa hasiyaasi waa soo dhaweynaynaa aadna ugu faraxsanahay waa qof sumcad ku leh dadka Soomaaliyeed dhexdooda iyo dalka Mareykanka labadaba iyo dunida siyaasadda caalamka iyo geeska Afrika aad iyo aad uga qayb qaadata marka waa soo dhaweynaynaa marka Puntland safarkeedu wuxuu uga dhigan yahay maadaama Congress-ka ay kamid tahay Puntland wuxuu uga dhigan yahay inuu xiriirka Mareykanka iyo Puntland ay si hagaago waxay uga dhigan tahay in muxuu ahaayay fariimaha ay qabaan Soomaali qabto ama Puntland qabto inay gaadho baarlamaanka Mareykanka gaadho inay siyaasadaha Mareykanka gaadho waxay uga dhigan tahay inay xog ka ogaato arrimaha Puntland meesha marayaan iyo Soomaaliyeed meesha marayaan inay xogaal u noqoto iyo lugaheeda ku timi intaas maanta halkan waxa lagu soo dhaweynayaa Congresswoman Ilhan Cumar oo ka imanaysa Mareykanka si fiican baa u jeedaa halkan ay golihii wasiirada iyo xildhibaanada dadka reer Puntland isku soo baxeen marka arrintaas sharaf bay noo tahay dabcan gobolkay booqanaysaa Puntland bay imanaysaa maaragtay Muqdishona waa tagaysaa iyo gobolka intiisa kale marka si wanaagsan baa loo soo dhaweynayaa hadda sharaf bay noo tahay halkan waxa ka socda hadda shirkii qurba joogta Puntland oo xoogoodu ka yimi gobolkeeda reer Minnesota oo iyaguna halkan kulankan qayb ka ah marka arrintaas si fiican loogu soo dhaweynayaa qayb bayna ka tahay isku xirka Soomaalida dibadda oo xilalka ka haysa iyo dalka hooyo in isla jaanqaadaan maadaama deegaanada ay ka soo jeedo muxuu ugu fadhiyaa safarkeeda Puntland wala wax badan buu ugu fadhiyaa hadda waa sarkaal sare weeye oo aqalka Mareykanka Congress-ka ka tirsan inay aragto duruufaha ka jira gobolka iyo deegaan ahaan meeshii ay asal ahaan ka soo jeeday constituency-ga halkeedu ka soo jeeday aad bay muhiim u tahay indhaheeda ay wax ku aragto waxay joogtaa meel ay talada wax ka go'aamiso oo Afrika ay maaragtay saameyn ku leedahay iyo adduunkaba marka indhaheeda inay wax ku aragto aad bay u tahay anagana sharaf weyn oo teen soo dhaweyn waa sanatarad Mareykan runtiina waa qof Afrika oo dhan magac u sameysay kana soo muuqatay Congress-ka baarlamaanka Mareykanka runtii aad baa loogu faraxsan yahay soo dhaweynteeda magaalada Garowe caasimadda waa aragtay banaanka soo wada baxday sababtuna waa Ilhan Cumar iyo soo dhaweynteeda iyo qiimaha